Assalaamu calaykum kusoo dhawaada channelka dhaxalgal maanta waxaan idin wadaa mowduuc muhiim ah akhrinta dadka inaad akhriso qof wax uu ku fikirayo xaaladda uu ku sugan yahay iyo qaabka uu u dhaqmayo marxaladaas la jooga iyo sababta ka dambeysa waa arrin u baahan barasho maanta waxaan ku siin doonaa dhowr tallaabo si aad u noqon lahayd qof dadka akhriya akhrinta dadka waa xirfad ay bartaan dad qaar anaga inaga mid ah si caadi ah u bartaan dadna ay waajib ku tahay inay bartaan sida qolada dembi baarista CID-da waxaa waajib ku ah inay bartaan akhrinta dadka si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa dembiilayaasha sidoo kale hogaamiyaasha ayagana ay muhiim tahay inay bartaan sida dadka loola hadli lahaa qaabka xaaladaha marxaladaha ay ku sugan yihiin sidoo kale ganacsatada ayagana ay muhiim u tahay si ay customerskooda ula socdaan coacheska life coacheska dadkan nolosha dadka baro oo seminaarada qabtaan sidoo kale dadka diraaseeya cilmu nafsiga iyo dadka ku lug leh xiriirka dadka intaan oo dhan waa dad ay waajib ku tahay inay bartaan xiriirka dadka sida qaabka dadka loo akhrin lahaa haddaba waxaa jirta dad qaar anaga inaga mid ah oo ay u fududahay inay dadka akhriyaan sida saaxiibkaaga oo ku dhahaya maanta waad murugaysan tahay maxaa kugu dhacay adigoo la yaabaysa habka uu ku ogaaday iyo qaabka uu ku weydiiyey dadka noocan waxaa lagu magacaabaa good analytic person waxaad aragtaa shaqooyin la soo dejiyo oo ay ku xusan tahay qofka shakhsiga ah waa inuu lahaadaa must have a good analytic skills waa inuu lahaadaa xirfad dad akhrin waa inuu ku ficnaadaa sida dadka loo akhriyo qof waliba ma rabo inuu shaqaaleysiiyo qof looxa oo meel la fariisiyo oo aan ka warqabi karin dadka hareerihiisa socda waxyaalaha ay ku fikirayaan sida ay u dhaqmayaan hadalka si kale aan u dhigno waa qof aan lahayn adaptability la qabsiga dadka marka soddonka ilbiriqsi ee ugu horeysa qof waliba anaga inaga mid ihi wuxuu awood u leeyahay inuu akhriyo qofka kale asaga oo dhahaya maanta waad murugaysan tahay maanta waad faraxsan tahay asagoo wax waliba uu ka dhahan karo qofka kale wejigiisa balse su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah farxadda qofka kale jilliin miyay ka tahay wax qalbigiisa jeremiya mise adigu un ayuu kuu muujinayaa haddaba su-aasha marka ay meesha marayso waa marka loo baahan yahay xirfadle ku xeel dheer sida loo akhrin lahaa dadka waana meesha ay ku kala haraan dadka caadi dadku u akhriya oo iska qiyaasa iyo dadka bartay marka aynu sii gudagalno mawduucani maanta akhrinta dadka waxaa jirta dhowr khubaro oo u kacday cilmigan amaba sida loo akhrin lahaa dadka noo fududeysa maanta ilaa heer ay gaarsiiyeen in xitaa tiknolojiyada iyo kombiyuutarada ay dadka akhrin karaan oo wejiyada ay aqoonsan karaan waxaynu ka soo qaadanaynaa mawduucani maanta nin lagu magacaabo Albert Mehrabian oo ka hadlay sida qaabka fariinta ay u gudubto Albert Mehrabian waa dhakhtar amaba professor oo ku sameeyay daraasaad sida dareenka dadka ay u gudubto fariinta wuxuu dhahay 7% fariinta waxay ku gudubtaa erayo 38%na waxay ku gudubtaa codka tayadiisa 55%na waxay ku gudubtaa waxaynu u naqaano luqadda jirka amaba body language-ka waa meesha ugu badan ee ah 55% waana meesha laga ogaado qofka waxyaalaha uu sameynayo dhaqdhaqaaqa bishimihiisa wejigiisa gacmihiisa sunniyaashiisa dhammaan qaybaha jirka taas oo inoo sahlaysa marka inaynu akhrino dadka si fudud aan u akhrino weliba waxaa jirta xigmad oranaysa erayada ka soo baxa afkaaga waxaa ka muhiimsan dhaqdhaqaaqa bishimahaada inaad sheegayso run amaba inaad sheegayso been sidoo kale maanta waxaan ku bari doonaa cinwaankeeni ugu horeeya sida loo soo saaro dhoola caddeyn been ah waxaa jirta sawiro dhowr ah oo asxaabteena ay inugula wadaagaan social mediaha dhammaantood sawirada marka aad fiirisid waxaad arkaysaa qaar isku qasbaya dhoola caddeyn qaar ku soo qoraya waqti farxad bay ii ahayd run miyay ka tahay mise waa jaliin un anaga un baa been naloo soo dhodhoobay ila daawa marka labadan sawir ee hortaada ka muuqda mid wuxuu ku aadan yahay gacantaada midigta midna wuxuu ku aadan yahay gacantaada bidixda midka ku aadan gacantaada bidixda iyo midka ku aadan gacantaada midigta keebaa kuula muuqda dhoola caddeyn rasmi ah 1 2 3
haddii aad dooratay midka ku aadan gacantaada bidixda waad qaldan tahay. haddii aad dooratay midka gacantaada midigta ku aadan waad saxan tahay. bal haddaba aan ku baro sirta ugu weyn ee maanta. waxaan aragnaa dad marka ay sawiraan galayaan dhoola caddeyn isku qasba, si waliba aad iskugu qasabto mise si waliba aad iskugu daydo oo aad ugu guulaysato inaad samayso dhoola caddeyn kula muuqata mid farxad, waxaa jirta hal sir oo lagu ogaan karo in dhoola caddeyntaadu ay tahay mid been ah. dhoola caddeynta saxda ah waxaa loo yaqaanaa Duchenne smile. waxaa loogu magac daray saynisyahan Faransiis ah oo baaritaan ku sameeyey dhoola caddeynta midda rasmiga ah iyo midda beenta ah. haddaba sirta ugu weyn ee ku jirta dhoola caddeynta waa in ay dedismaan murqahan isha agteeda ah, geeska cornerka amaba geeska dhanka ishaada midig mise midda bidixda in ay isku imaato. wax loo yaqaana calaamadahaas kaaga muuqda hortaada. midda kale dhoola caddeynta waxaa loo baahan yahay inay ka samaysnaato bishimaha, waa inay gees ay u kala jiidmaan, ama dhinac ha u badnaadaan amaba labada dhinac ha u kala jiidmaan. waxaa kaloo mamnuuc ah mise dhoola caddeynta beenta aad ku arki kartaa in ilkaha hoose ay soo muuqdaan. ma jirto qof dhoola caddeynaya oo ilkihiisa qaybta hoose soo muuqanayaan. waxaa laga yaabaa inaad aragtid qof sawir galayo oo ilkihiisa qaybta hoose soo muuqdaan. taana waa mid kale aad ka fiirin karto. midda kale waa in bishimaha gees ay ayagana ay dedismaan, xariiqmo yar ay galaan. sidoo kale in dhabanka amaba daamanka uu yara kor u sigto, kor xogo u yara sigto si uu u sameeyo wareegga isha, taasoo ah inay dedismato. sirta ugu weyn oo ah in gees isha ay dedismato oo indhihii wax yar ay hoos usoo yara baxaan. waxaad arkaysaa qof dhoola caddeynaya sida sawirkan kaaga muuqda oo indhihiisa ay caadi u furan yihiin, aysan leen wax riigma sida sawirka hortaada ka muuqda. durba waxaad leedahay sawirkan waa fake. okay, haddana midkan kale aan sii fiirino. labadan sawirkee kula muuqda mid fake ah iyo mid real. haddii aad dooratay midkan midigta waad saxan tahay. waxaad ku guulaysatay inaad soo saarto dhoola caddeynta rasmiga ah. okay, dib u laabo raac sawiraantaada asxaabtaada amaba kuwa social media lasoo dhigay, keebaa kula muuqda mid fake ah mid rasmi ah. okay, haddaba maanta waxaynu baranay sida loo soo saaro dhoola caddeynta rasmiga. 2 waxaan ku bari doonaa sida loo soo saaro qofkan inuu yahay qof hadalkaaga xiisaynaya ama qof hadalkaaga ka soo horjeeda. haddii ay jirto hal sir oo lagu ogaan karo in qof hadalkaaga uusan xiisaynaynin amaba wax daneen gaara uusan u haynin amaba uu dhibsanayo su'aalaha iyo waxyaalaha aad weydiinayso, waxaad ku ogaan kartaa sida tan. marka aynu ahayn caruur, marka uu na dilo waalidkeen, waxaan tagi jirnay meel bannaan ah amaba qolka meel ka mid ah, annagoo ooynayna oo gacmaha isku laabanay, gacmaha iyo lugaha isku laabanay oo cabbaar waqtigeena meesha ku qaadanayno. marka aynu madax kor u soo qaadnay iyo mar waliba oo qof uu naga xanaajiyo, ma samayn karno intaan cararno inta meel gaar aan u wada fariisano. marka waxaynu samaynaynaa difaac jireed oo ah in gacmaha aynu isku laabano. haddii aad aragto qof su'aal aad weydiiso, tusaale qof ayaad waxaad ka wada hadlayseen arrimo caadiya, durba waxaad u beddeshay mawduucii inaad weydiiso arrimo gaar asaga shakhsiyan qusay. waxaad aragtay qofkii oo gacmaha isku soo laabay sida sawirka ka muuqata. qaybtan waa difaac jireed oo dhahaya may su'aashaas ay weydiin ma rabo inaan ka jawaabo. sidaa ayay u dhigantaa. haddana waad ku sii waday oo durba lugaha ayuu isku soo laabtay amaba wuxuu bilaabay jeejeesi. waxay kuu muujinaysaa in qofka hadalkaaga uu dhibsanayo. amase waxaad la kulantay adoo waddada sii socda ayaad inta qof salaantay, war ii waran saaxiib seetaan fiican tahay. marka aad salaantay wuu ku ixtiraamay, wuu kuu joogsaday, balse marka aad dhowr su'aal weydiisa ayuu wuxuu bilaabay in lugihii isku soo laabto mise lugihiisa uu jihada kale uu aadiyo sidii qof dhanka kale ku aadan oo u sii socda. durba waxaa maskaxdaada ku soo dhacaya haddii aad tahay good analyzer, qof wax taxliilin kara, qofkan sheekadaadii ma rabo mise wuu degdegsan yahay, qofkan meeshan ha ku haynin oo ha sii socdo iska daa.
haddii aad soo gaartay dhammaadka muuqaalka waxaan ka codsanayaa inaad subscribe aad saarto sidoo kale waxaa jiri doona muuqaalo la mid ah muuqaaladan oo aan ugu hadlayno sida dadka loo akhriyo ilaa 4 muuqaal ayaa jiri doonto oo hadda aan diyaariyey balse ay ugu qaadanayso in isbuucyo aan soo geliyo sidoo kale haddii aad daawatay muuqaalkan inta aanan soo duubin casharada noocaas waxaan ka codsanayaa inaad taabato gambaleelka si aad qayb ugu noqoto dadka ugu horeeya muuqaalka daawada aad ayaad u mahadsantihiin ku soo dhawaada channelka